قبنا الله ما دايسكالي جعيلكو قبنا الله ما دايسكالي kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba halkani waa golaha fogaal aragga Djibouti Channel TV ood kala socotaan magaalada Ottawa ee xarunta dalkani Canada sabtidii aan soo dhaafnay taariikhduna ay ahayd 22kii bishii shanaad ee sanadkan 2011 magaaladan Ottawa waxaa lagu qabtay xaflad lagu xusayay sanad guurihii koobaad ee ka soo wareegay caleemasaarkii ugaaskii 19aad ee beesha Ciisaha ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim ugaas Wacays fanaaniintii ka soo qayb qaadatay xafladaasi waxaa kamid ahaa fanaanadii weyneyd ee Nimco Jaamac Migil fanaankii Umar Fariid Indayare iyo fanaankii daada yaraa ee Yuusuf Xasan Jooni sidaan wada ogsoonahay daawadayaal sanadku markuu 1600 waa 16 qarni ka hore odayaal kamid ah odayaashii aan ka tafiiranay ayaa kulan ku yeeshay goobta lagu magacaabo City ee ku taala gobolka Shiniile ay Soomaalidu ku leedahay dalkaasi Itoobiya kulankaasi ayaa goobjoog u ahaa go'aankii ka soo baxay muxuu ahaa su'aashaas waxaan u dhaafaynaa beesha ku abtirsata ugaas Makaahil intaani soo baahin barnaamijkeena maanta daawadayaal walaalahayna Soomaaliyeed ee hanu barino inuu isaafgarad ku arsaaqo haybadii iyo sharaftii ay lahaayeen uu soo celiyo ciid wanaagsan kullu aamin wa antum bikhayr haddii aan gaabinoon tallaabada gabigaanay tii hore aan taabi weynay ama tamar u weynay waxaan soo tukubnaba waa tan caawa damaashaadaan ugu dabaaldegayno sanad guureenii koobaad ee caleemasaarkii ugaaskeenii 19aad ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim ugaas Wacays barnaamijkeena caawa waxay noo daadahaynayaan anigoo Ismaaciil Ladiya waxa halkan igala daran doorin doonta anigoo Khadiija Cumar Bashiira lab iyo dhidigin yar iyo weyn dhalinyar iyo waayeel marti iyo mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkeena caawa uu inoo furan yahay aayaadkii ilaahay in kamid ah oo dahan kaga ragano aayad quraana uu inoo qaadayo Sheekh Xasan uu inoo akhrinayo Sheekh Xasan Aadan soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعثرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديدي قبان قابضا حفلة عاوة لهيد وحين كليهين موسى الراقي موسى هراب محمد إسماعيل أولا إسماعيل عبدي بله عيسى بلهان إيا أنيقو أو إسماعيل الذي
hanusoo kala horo fanaaniintu sida ay u kala horeeyaan soo dhaweynaa imikana fanaanadeena weyn nimco jaamac migel soo dhawow yeedha haddana fanaankii weynaa cumar fariid oo loo yaqaano cumar indhayare waxaan kaloonu yeeraynaa fanaankeenii da'da yaraa yuusuf xasan jooni walaalaha martida noogu ah magaaladani Ottawa inooga yimiday magaalada Toronto iyaan jecelnahay inaan gacmo furan ku soo dhaweyno waxaan ka codsanaynaa sida ay u dhan yihiin in ay halkani noogu yimaadiin aad baan igu faraxsanahay dhowr iyo 20 sano aan ku noolahay dalkani Canada waa markii ugu horeysay ee beesha ku abtirsata ugaas makaahiil ay iskugu timaado arisidana aad baan ugu faraxsanahay soo dhawaada nileen hadduu eebaydmo waan isku soo laami doonaa hadal iyo hawraar iyo hawl intuba way noo laaban tahay waxaan iga codsanaynaa inaad meeshii ku noqotiin waan isku dambeyn doonaa halkan waxaan imika uga yeeraynaa hawl kastoo la qabto hoodahooga leh hawshan guddigii soo qabanqaabiyey guddoomiyihii guddigaas oo ah Muuse Raage waxaan ka codsanaynaa inaad halkan timaado oo erey tidhaaho Thank you Admatintin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaantiin waad salaamantiin waad ku mahadsantiin caawa intaad moogtahay halka kani iskugu timaadeen annagana moogtahay wax la wixii aan soo qabanay waa mahadnaq iyo noo tahay hadalkaanoo nigu sii dheeraynin halkan waxaan moogtahay uga mahadnaqayaa guddidii aan shaqada soo wada gallay dhammaantoodba ay ka mid ahaayeen raggii uu hadeertoo la inii tiriya halkan waxaanan si gaara ugu mahadnaqayaa laba nin oo walaalahaya maxamed aare iyo cabdu xaaji oo moogtahay in qolkii arrinta tani moogtahay aan soo bandhigay igu garab galay ugu horeeyay igu dhiiri galiyay iyaan halka kan ugu mahadnaqayaa anoona hadalkii ku sii dheeraanayn reer Toronto walaalaheena Toronto nooga yimiday iyo inta kale marti nooaba dhammaantood way mahadsan yihiin reer Toronto iyagu aad bay u mahadsan yihiin waa kaade anu halkaaban kaga bixi waanad mahadsantiin dhammaantiinba wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu imikana waxaan u yeeraynaa wafti ka socda safaaradda Ethiopia ee ku taala magaalada Toronto maadaama aan dalku leenahay dalka Ethiopia waxaa farad nagu noqotay inaan soo marti qaadno safaaradda Ethiopia oo xiriir fiican la leenahay haddii ay tahay dalkani Canada Mareykanka iyo dibadaha intooda kale waxaan u yeeraynaa Waysaro Burtukhan
safaaradda Ethiopia waxay nagala hadlaysaa walaalayaal caawa sidaad ogsoontihiinba maalgelin kolka waxay iga codsadeen inaan dadka ugu yeedho waxaase u sheegay in xaflad caawa aan leenahay ay iyaku noo yimaadiin ayna ahayn had iyo jeer inaan anagu u tagno wayna naga aqbaleen martiqaadkaas kolka hadduu alla yidhaaho af axmaar hadday ku hadlaanna waan u dulqaadanaynaa ingiriis hadday ku hadlaanna noo baroon waysaro Burtukan. Wizara Burtukan, welcome to our Ugas celebration. This is the first anniversary of our new Ugas, the 19th of the community of Isa. Welcome. So you're gonna speak in Amharic or in English? As we like. You have the choice. Okay. English. No problem. Go ahead. Okay. First of all, thank you very much. I would like to say thank you for the Ethiopian Somali community and diaspora to invite us to this historic and cultural event. I would like to say thank you again on behalf of myself and on behalf of our consulate. And my name is Burtukan. I'm second counselor in the consulate. And over there, my colleagues, Johannes Admasu, also from the consulate, and Mr. Abraham Talla, also from the consulate. So we are three. We came here just to celebrate with you guys. And we have been working with the community since the last 2 years, and these communities, they are very committed regarding the agenda of our country in development. So especially they showed us very high commitment in the last our GTP meeting. Some of you may participate in that meeting. We want to say thank you again, and we will work together regarding the national issues, especially in development endeavor. So our consulate had a program on June 11. Just it's a fundraising program for this historic dam. So we call upon all of you guys to participate on that event. It is on June 11. We'll let you know the place and the time through your community representative, through Ismail. So we'll wait you there. Thank you very much. We can say also that Mengistu Haile Mariam is no more. There is a democratic government in Ethiopia.